wafdigani ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya General Mukhtaar Xuseen Afrax ee soo gaaray magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan waxaa qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo waliba ku-xigeenka xiriiryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida mas'uuliyiin kale waxaana garoonka diiradda Waasqaleef ee magaalada Beledweyne wafdigu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya kaga hortagay isla markaana halkaasi si mug iyo miisaan bal ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka kan degmada Beledweyne saraakiisha ciidamada qalabka sida odayaal dhaqameed iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka General Mukhtaar Xuseen Afrax wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa markii uu ka soo degay diyaaradda saarnaa waxa ugu horreyn wasaaran sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida kuwaas oo garoonka ugu diyaarsanaa soo dhaweynta wafdiga ballaaran oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha asigoo sidoo kale salaan gacaltooyo mid ugu gacan qaaday dhammaan dadweynaha ku sugnaa garoonka ee u diyaarsanaa soo dhaweynta wafdiga ballaaran oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya General Mukhtaar Xuseen Afrax ee soo gaaray magaalada Beledweyne intaasi kadib wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya iyo wafdiga hogaaminaya ayaa loo soo galbiyay gudaha magaalada Beledweyne waxaana aqalka madaxtooyada looga arrimiyay gobolka Hiiraan ee Beledweyne warbaahinta shir jaraad ugu qabtay faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka wafdigan oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Soomaaliya ee ku soo gaareen magaalada Beledweyne afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish maanta oo ay taariikhdu tahay 21 Agoosto 2021 aan soo dhaweynay wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka waxa safarkiisa ku helinayay xildhibaan Nuur Iidow Beyle oo kamid ah xildhibaanada tobnaad ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale oo runtii maaragtay qiimo sare u leh dadka reer Hiiraan safarka wasiirka iyo xildhibaanada qaar kamid ah federaalka wuxuu daaran yahay kulamo isdaba joog ah oo maalmahanba ay u joogeen mudanayaal hore oo sidaad wada ogsoon tihiin uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed runtii maamulka gobolka Hiiraan aad iyo aad sida aad aragteenba si diiran ayuu u soo dhaweeyay wafdigaas waxaan leenahay mudanayaal soo dhawaada howlaha u timideena waa rajaynaynaa in wax badan ay ka qabsoomaan maadaama mas'uuliyiin karana oo fara badanna ay hore u joogeen adikuna aad hadda maaragtay runtii iyadoo liidatabayo liid sugaya aad timideen waqti munaasib ah ayaa timideen ayaan leenahay shacabka reer Hiiraan gaar ahaan reer Beledweynena way sugayeen waxaan rajaynaynaa run ahaantii in guulo la taaban karo oo halkaas ay ka soo baxaan hadduu Ilaahay raali ka dhigo Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse Hirshabeelle TV Beledweyne